وبايدو ويكبيري صعدت الحدى وقلت قولي وبابو وبلابي أبكي بحايا بدنياي وبايدو ويكبيري صعدت الحدى وقلت قولي وبابو بقدر أجيب بقدر أجيب بقدر أجيب kulan wanaagsan daawadayaal halkan waa telefishinka VOS waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Saaka iyo VOS qodobada aad daawan doontaan waxaa kamid ah midowga musharaxiinta oo la kulmay odayaasha dhaqanka iyo haweenka Muqdisho xildhibaan kamid ah golaha shacabka oo sheegay in loo diiday inuu tago gurigiisa waxa kale oo aad barnaamijka ku daawan doontaan talaalka COVID-19 oo laga daafuray dowlad goboleedka Hirshabelle sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan dowlad goboleedka Galmudug oo xukuntay 31 Yemeniyiin kalluumaysato ah oo lagu soo qabtay kalluumaysi sharci darro qodobada iyo kuwa kale aad ku daawan doontaan barnaamijka Saaka iyo VOS أنا ku bilownay daawadayaal barnaamijka midowga musharaxiinta ayaa magaalada Muqdisho waxa ay kula kulmeen odayaasha dhaqanka iyo haweenka Muqdisho kulanka oo ka dhacay hotelka Jazeera ee magaalada Muqdisho ayaa midowga musharaxiinta iyo odayaasha dhaqanka waxa ay uga wada hadleen xaaladda dalka iyagoo madaxweynaha Soomaaliya ku eedeeyay inuu muddo kororsi wado qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka iyo haweenka ka qayb galay shirkaasi ayaa ku dhaliilay madaxweyne Farmaajo in uu muddo kororsi sameeyo isaga oo ay ugu baaqeen in uu madaxtooyada isaga tago madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday dadka inuu maaragta ku tunta laga yeeli maayo waa inuu u hoggaansamo amaamiirta iyo maxaan ku leeyahay baaqyada kala duwan inuu isdhagooliyo maaha waa inuu ogolaado doorashada hagaliyo hadduu ku guulaysto xaqa uu leeyahay hadduu ku dhaco ayadana ficiisa dhici jiray hadda ka horba waa maaragta ku guul daraystay la iskuma haysto laakiin waxa uu samaynayo oo isugu dhiibayo maaragta warmaha waa inuu naga daayo dalka oo isku soo jeedshay shalay baarlamaankii wixii ka dhaca waa la ogaay in dad magacyadooda la qoray dadka daday matelaan yeeli mayna mana ogolaanayno in lagu tunto maaragtay qarannimada dadkaasi 4.5 ayuu dalka lagu joogaa ma ogolin in la yiraahdo soo geli ma karaan hebel iyo hebel ee handadaadaas la keeno gudoomiyaha baarlamaanku arrimahaas waa inuu ka fogaado asaga qaada dhibaatadii dalkaas soo gaartay hanjabaad la yeeli maayo dalkan dadaa u soo dhibtooday dadaa meesha uu jooga keenay lagama yeeli karo in maanta inta la maxaan ku leeyahay la isu bahaystay ee ilmahayna noola adeejiyo ee la yiraahdo jidadka lagu xiro dadka hala dilo la yiraahdo cid qaadanaysa male dadka maaragtay dalka dadaa u soo baaba'ay gobonnimo doonka dadaa u soo dhintay tan waxa waaye waa gobonnimo doon mid laga shibdhihi kara maaha waa inuu maaragtay ka xishoodo oo naga xishoodo intaas ayaa lala hadlaayay wax ka soo qaadma dadka beenta sheegaya ee dulmiga la garab taagan oo dhageysayo waxay u haayaan male annaga runta u sheegayna manaafaqaymayno waa nagu wallahi waa nagu billahi ha ka joogo maxamed cabdullaahi farmaajo nimanka maaragtay waqtigoodu dhamaaday oo bixi jiray ayuu la mid yahay waqtigiisu waa dhamaaday hadda ku soo noqdo nasiibkiis laakiin yowna nagelin welwel iyo dhibaato dalka yow u horseedin wuxuuna dhihi jiray wadaniyaan ahay hooyadeeyaa ahayd aabbaheeyaa ahay ayuu dadka ugu sheekay jiray hadduu wadani yahay oo dadkiisa wadaninimo oo ka soo jeeday oo duriyo wadani yahay ha naga daayo dhibaatadan taagan waxay ku ekeed bisha la yiraahdo 8 Febraayo February wixii ka dambeeyay mirqo nagu haaya nimanka baahan oo baarlamaanka ku jira maamul goboleedo dadka aad matashiin dad ku matashiin iska malihiina maamulada maaragtay irka ma soo dhicina dad magaciisa ku joogtiin waxaan idin sheegayaa
taariikhda madow ayaad roogsanaysiin haddaad u horseediin in nagula gumaado xamar laysku gumaado ee la diido ee loo hoggaansami waayo mas-uuliyaddeer idinkaa qaadayseen cid kaleba qaadi mayso marka aad iyo aad ayaad horta u mahadsantihiin jaa waxaan naqanaynaa emotional markaan ogaano waxa madaxweynaha sida aan u rabnay qabiilnimo kuma rabin aqoon kuma rabin annaga ninaan jeclaano ahay waa soo dhaweynay waasaan nagu tunto haya tumashada hanaga daayo tumashada uu nagu tumanaayo wallaahi billaahi waxaan ka dhimanaynaa dalkaas inuu burburo nimanka lelee qaswadayaal waaye oo maaragta madowga musharaxiinta hadday dagaal rabaan mar horay dagaal qaadi lahaayeen cawa madoobo 7 saaco habeennimaa lagu bilaabay jidkaa lagula bilaabay dadka horyaa loo adeegsaday inta la adeejihayo inta loo adeejinayo dhallinyaradaasay idinkana taariikhda meel madoobaad ka fadhiisaysiin waa in maaragtay qor isu dhiibay ahayd qor isu dhiibki ha ogolaado yow ku dhegaan ha ogolaado ha ka xishoodo ma waxau noqday dadka dhagoolka hadduu qof dibirsado maanta dhan lagama kici karo waa kor fadhinaa le marka asaga hadduu ka raaya dadkan yow ha naga daaya ha ka korkaca dadka waxayna go'aan ku gaareen inaysan qof ku xadgudbin qoftii ku xadgudbayna ay arkaan oo iska qabtaan in doorasho saxa la aado oo waddada doorashada la aado oon wax lagu darsan waxaan kaloo sheegaynaa cid wax ku darsan karta ama baarlamaan ama madaxweyne ma jiro maya ninkii walba soo ku yimid waa ogyahay doorashuu ku yimid doorashadu ku yimid waddadeeda waa inuu qaadaa hadduu qaadi waayana asagay u taallaa waxaa isu yimiday dhaqanka beesha bahweynta hawiye iyo siyaasayntooda waxayna go'aansadeen doorasho xura inay dal ka dhacdo oo xalaala ku darsi maya doorasho xur iyo xalaalahay u soo diyaargaroobayaan cidda rabta inay xilkan madaxtinimada qaadato waxaa la dhahay maalin dhaweed 15 xildhibaan magacyadooda inta la soo qoraa waxaa la dhahay qaswadayaal waaye gabdhaha firimbiga yeerinaya aflagaadoonaya ee caytamaya qaswadayaal ma ahan miyaa ma systemka hadda socdo farmaajo taageero u yihiin ay taageereen war ilaahay laga cabsado waxaas waxa aqbali karna ma ahan waxaan ogolaan karna ma ahan wax aan yeeli karna ma ahan hadii aan nahay especially dadka xamar u dhashay ee ku nool hadaan nahay systemkaaga ma ogolin wuu naga hor imaaday waa aqbali weynay annaga shalay ku soo xambaarnay maantana waa ku nacnay waxaan la hadlayo waa madaxweyne farmaajo ha ku tumanin maalin walba waxaan fiirsanaa adiga oo ku xadgudbaya dastuurka jooji ku xadgudubka dastuurka min fadlan jooji waxaan bariyahan maqlaynay baarlamaanka fadhiya waxbuu kordhinayaa 2 sano 3 sano waxbuu kordhinayaa taasna waa diidnay hal daqiiqo inaan lagu darin dalku doorasho ha aado ninka ku guulaysana waa lala shaqeey doonaa insha Allah taala laakiin dalku doorasho ha gaaro ku darsashana ma jirto xildhibaan ka mid ah golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya waxa uu dacwad ka yahay qaar ka mid ah ciidanka dawladda oo sheegay in ay u diideen inuu booqdo gurigiisa xildhibaankan ayaa sheegay in 27kii bishan Maaj uu qayb ka ahaa xildhibaanadii diiday shir uu ku tilmaamay sharci darro ee baarlamaanka fadhigiisii ahaa waxaana kadib uu sheegay in loo diiday in gurigiisa uu booqdo waxaan maanta saxaafadda iskugu yeeray anigoo ah xildhibaan Daahir Maxamuud Muuse xaaladda dalku ma marayo inaan warbixin kooban siiyo iyo gaar ahaan maalmihii ugu dambeysay waxaan rabaa inaan brief gareeyo 27dii markii noo soo xirnay kala fadhigii oo maalintaas lagu balansanaa oo suurtagali weyday isagoo ahaa kala fadhi aan waafaqsanayn sharciga maadaama ajandaha la soo diray oosan qeexanayn oo soo marinin protokolkii guddiga joogtada ahaa iyo waxaa ka dhashay xildhibaanadii maalintaas fikirkooda cabiray oo ka hadlay baan ka mid ahaa kadib shara galab 12kii markay ahayd gurigeygii markaan dabcay inaan tago waxaa hor istaagay ciidamada amniga qayb ka mid ah ciidamada nabad sugidda oo ku yaala gurigeyga meel ku dhegan godka Jinacow ciidankii joogay meesha checkpointiga markaan la hadlay oo ku iriya amarka bixiyay waxay sheegeen saraakiisha sarsare kadib xiriir aan la sameeyay aakhirkii waxay yiraahdeen madaxda u sareysa taliye ku xigeenka ayaa amarkaas bixiyay sidaas gurigeyga laga hor istaagay
xalay aan ku seexday magaalada hotel ku yaala ilaa haddana uu xaniman yahay waxaan rabaa inaan u sheego ummadda Soomaaliyeed xildhibaanku sharci wuxuu u leeyahay inuu fikirkiisa cabiro wuxuu u banaanaya qodobka 71aad qodobka 70aad inuu xorriyadiisa iyo cabiri karo oo san lagu cabirin karinin sidaa daraadeed waxaan cadeynayaa aniga oo ah xildhibaan Daahir Maxamuud Muuse in cabirkii aan cabiray waddanka siyaasadiisa meesha u socoto iyo aragtidaydii in dawladdu ay u isticmaashay siyaasad ah in laygula dagaalamo gurigayga laga celiyo anoo ah muwaadin sharciga dastuurka iyo sharciga islaamka meel aysan uga banaanayn in shakhsi muwaadin gurigiisa hor istaago laga celiyo saa daraadeed waxaan rabaa laba fariimood inaan ka diro meesha tan mid waxaan u dirayaa ciidamada amniga oo aan sharaf iyo u hayo inay ku koobnaadaan wixii dastuurka u ogolaaday oo shaqadii qarannimada amniga muwaadin kasta oo Soomaaliya ama xil ha hayo ama yuusan haynin ama shacab ha ahaado ama dawli ha ahaade inay gutaan sida sharcigu u ogol yahay aysan ka faa'iideysanin cid gooniya aysan ugu shaqaynin awoodii ciidan oo loo idmaday oo ay mas'uuliyadda iyagu leeyihiin cid gooniya inay u adeegaan mid labaadna waxaan u dirayaa madaxweynaha qaranka madaxweynaheena hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo aan doortay kamid ahaa xilmaanadii soo saaray madaxweyne waxaan ku dooranay 4 sano oo la soo dhaafay inaad hogaamisid waad soo hogaamisay waqtiga waa dhamaaday waddankan wuxuu u baahan yahay doorasho xor iyo xalaal ah doorasho xal ah doorasho loo wada dhan yahay doorasho ummadda Soomaaliyeed ay kulli isku raacsan tahay doorasho isku raacsan yihiin maamul goboleedyadu iyo dawladda dhexe sidaa daraadeed sharcigii baarlamaanku ansixiyay oo ahaa sharcigii ugu dambeeyay oo soo barbowsay 17 ku soo heshiiseen waxaan rabnaa waddanku inuu doorasho ku aado waxaan rabnaa doorasho loo wada dhan yahay madaxweyne waxaan leenahay doorashadu waddanku meeshu soo marayo maanta meel gabiyo ka laalaadaa haddii aad doorashadaas la siyaasadeeyo cid gooniya ama shaati gooniya laga tasho ama cid gooniya ay isku cabirto sida iyadu jeceshahay waddankan xaaladiisu meel khatar ku socdaa waddankan wuxuu gali karaa xaalad burbura waddankan wuxuu gali karaa inuu dib u noqdo burburkii iyo dhibaatadii Soomaaliya la soo maray waxaan mar labaad leedahay madaxweyne sumcadda Soomaaliya meesha ay marayso inaysan wax gaarin ma rabnaa xormada Soomaaliya loo hayo inaysan dhaawacmin ma rabnaa waxaan rabnaa Soomaaliya oo dhameystiran inaad 4 sano waxbay kugu xasuusan doonaan ummadda Soomaaliyeed ama ha wanaagsanaadeen ama xumaadeen maantay inaad doorashadaas aad doorka aad leedahay ka qaadatid oo aad madax banaysid oo ogolaatid aysan noqonin doorashadu Soomaaliya oo la qaban doono tii aniga igu dhacday oo ciidamadii amnigu ay igu target gareeyeen fikirkaygii sidaas la mid ah ummadda Soomaaliyeed waxaan rabnaa doorasho isku halayn karto madax bannaan oo aan cabsi gelin ku jirinin ciidamada dawladda aan loo adeegsanaynin tuhmo badan baa la qabaa tuhmadaas waxaa ka mid ah in madaxda hadda xilka haysa waqtigeedu dhamaaday inay iyagu say jecel yihiin ka shaqeynayaan sidaasu sida Soomaalida danta u amaahan waddankan ku jira dib u heshiisiinta maamul goboleedyadii iyo dawladdu waa markii ugu horeysay oo waqtiga uu dhamaaday oo aysan wada shaqeynaynin oo khilaaf badan jiro maanta waxaan u baahannahay maanta ummaddu waxay kugu xasuusato doorashadaas inay noqoto doorasho la yiraahdo xilligeedii madaxweynuhu dhibaatadaas u geystay bay noqon doontaa ama waxay noqon doontaa doorasho aad isku badbaadisid aad madax banaysid doorashada qofka la dooran doono wuxuu ku jiraa xaq rabbi ummadda Soomaaliyeed qofkii loo qoray ilaahay baa yaqaana waxaan mar labaad iyo mar saddexaad leeyahay yeysan eedaasu ka raacin doorasho aadan aqoonin cid ku soo baxaysa iyo qof noqon doona eedeeda ha qaadin ummadda Soomaaliyeed oo ku fiirsanaysa caalamku waa ku fiirsanaya cid walba oo ku fiirsanaysa waxaan u baahannahay doorasho qof kasta oo Soomaaliya isku halayn karo meeshuu doono ka gali karo deegaankiisa xor u yahay maamul goboleedkiisa xor yahay loo wada dhan yahay cid kasta oo matalaadlana ay ka qaadan karto aysan ummadda Soomaaliyeed niyad jab ku dhicinin ganacsatada Soomaaliyeed ee duruufaha kala duwan ku shaqeynaysana aysan ku dhibaatoobin waxaan u baahannahay doorasho loo wada dhan yahay oo ummadda Soomaaliyeed ay ku wada qanacdo caalamku ku qanco
sidaasaan codsanaynaa mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leeyahay ku soo gabagabaynayaa hadalkayga yaysa dhicin tii aniga maanta igu dhacday oo gurigaygii lagaga hor istaagay oo ilaa xilligan aan u xanimnahay fikirkayga aan cabiray oo madaxweynuhu mas-uulkii ugu sarreeyey uu yahay anigu aan doortay oo codkayga uu ku soo baxay maanta in la yidhaahdo xildhibaan ma hadli karo ummaddii soomaaliyeed oo kale oo shacabka lahayd oo cid walba lahayd xaggee joogaan aniga iyo xasaanad leh markii saa layla dhaqmo dhibaatadaasaa ummaddu tirsanaysaa in badan baa dadku wax dareemayaan mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leeyahay sharcigu ha shaqeeyo dastuurka oo waddankaanu leeyahay iyo sarreynta sharcigu hadday shaqayn waayaan cawaaqibta ka dhalata waxaa qaadi doona cidda mas-uuliyadda ugu sarreeyo maxamed cabdulaahi farmaajo oo waqtigiisu dhammaaday dowlad goboleedka hirshabeellena waxaa laga hirgeliyey talaalka covid-19 iyada oo ay isku bilaabeen mas-uuliyiinta maamulkaasi wasiirka wasaaradda maamulkaasi xildhibaano wasiiro iyo sidoo kale maamulka gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxa ay qaateen talaalka iyagoo sidoo kale ka warbixiyey degmooyinka loogu talagalay in talaalkaasi la gaarsiiyo ee hirshabeelle jowhar 4 goobood buu ka dhici doonaa balcadna wuxuu ka dhici doonaa 3 goobood warshiiqna wuxuu ka dhici doonaa 2 goobood cadale waa 1 goob raagaceelle waa 1 goob mahadayna waa 1 goob goobaha laga shaqaynayo iyo degmooyinka loo shaqaynayo waa caynkaas goob kastana waxaa ka shaqaynaya koox ka kooban 5 qof 2 qof oo tallaalo ah 1 qof oo mobilizer ama wacyigeliye ah 1 qof oo registerka qora ah iyo 1 qof oo ah crowd control ama goob nidaamiyaha waxa loo yaqaan ayaa ka shaqayn doonta aan soo qaatay talaalkii oo dabargoynta maxaa la dhihi jiray jadeecada oo 2 qayb garabka iyo gacanta ahayd haddana waxaan maanta warseedi doonaa talaalka in la qaato weliba waxaan leeyahay ma aha tababarye reer jowhar waxay ku qasban yihiin inay wada qaataan intii loo heli karo inay magaciisa ay qaataan intii tabar ay gaarto la siiyo qof waliba ka faa'iideysato fursadda maanta taagan tahay talaalkaasi wuxuu la mid yahay talaaladii hore loo bixi jiray sida jadeecadii iyo talaaladii kale oo dadka la talaali jiray marka waa talaal laakiin quseeyo in covid-19 marka waxaan rabnaa in maaragtay dadku ay dacaayadda iyo waxyaabaha maaragtay ku tira kuteenta la faafihayo la iska dhaafo marka waxaan rabnaa dadka bulshada ku nool gobolka shabeellaha dhexe guud ahaan inay ka wada faa'iideystaan kana wada qayb qaataan waxa ku tira kuteentaana waxaa la yidhahdaa almaru qofka sidiisaba caduwun limaa jahil wuxuusan aqoonin jaahil uu ku yahay waa min dabiicati albashar waaye qofka wuxuusan aqooninba barobagandoo ka faafina ilaa aqoon uma laha laakiin qofku wixii markuu barto wixii uu fahmo markaasaa laga yaabaa inuu yacni iddicaad uu sameeyo xataa oo isaga naftiisa uu xayeysiin uu sameeyo laakiin intuusan aqoonin way iska soconaysaa marka insha allah daawadan in la qaato oo maanta munaasabadan waa daafurkii oo talaalka covid-19 waaye in la wada qaato waa muhiim jiddan waaye ha la iska dhaafo marka shakiga faraha badan talaal kasta marka ugu horeysa waa la tijaabshaa talaalo badan baa adduunka soo mara oo taqaanaan kii waxaa soo maray furuqa ama small boxka soo maray measleska jadeecada soo maray kii kalooraha soo maray yacni talaalo tiro badan baa soo maray talaalkuna macnihiisu ma aha 100% inuu cudurka ka celinhayo waxa waa yacni ama 100% buu u dhawaano waa ka celin ama cudurkii macnaha ku soo weerari lahaa buu macnaha ka yasiraya haddii ilaahay uu daawo noogu daro halkaasna maanta waxaa macnaha nooga bilaabanaya daahfurkii talaalka covid-19 dowlad goboleedka galmudugna waxa ay xukun ku riday 31 yemeniyiin ah oo lagu sheegay inay hayeen kalluumaysato sharci darro ah kuwaas oo laga soo qabtay xeebaha maamulka galmudug maxkamadda gobolka mudug ayaa ganaax min $700 oo dollarka Mareykanka ku riday 31 ruux oo si sharci darro ah uga kalluumaysanayay biyaha xeebaha Soomaaliya ee u dhaxeeya magaalooyinka Xaradheere iyo Hobyo oo ay doomo halkaasi uga kalluumaysanayeen sidoo kale waxaa lagala wareegay doomihii ay ku kalluumaysanayeen iyo qalabkii ay wateen iyadoo sidoo kale 6 tan oo kalluun ah laga jilaabtay badda Soomaaliya dhammaan dadka la xukumay waxa ay ka soo jeedaan waddanka Yemen marka laga reebo hal nin oo turjumaan u ahaa oo Soomaali ahaa guud ahaan dadka ay ciidamada dowlad goboleedka galmudug gacanta ku dhigeen waxay tiradoodu gaaraysaa 39 ruux ha yeeshee 8 ka mid ah waxa ay hayeen caruur waxaana ay maxkamaddu ku dhawaaqday in aanay xukumaynin maxkamadda gobolka mudug
waxay u fariisanaysaa fadhiga koobaad ee dacwad ciqaabeedka lambarkeedu yahay 41/2021 oo ka dhaxaysa dowlad goboleedka Galmudug ee Soomaaliya oo uu matalayo xafiiska xeeryaalaha guud ee Galmudug iyo eedeysanayaasha horteena fadhiya oo ah eedeysanayaasha lagu soo qabtay doonida magaceedu yahay Albatar nambarkeeduna yahay 3.75 lagana leeyahay dalka Yemen. maxkamaddu waa mid u furan dhageysiga dadweynaha si waafaqsan qodobka 96 xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed inta lagu guda jiro dhageysiga dacwadda ka qaybgalayaasha waa in ay ka foojignaadaan wax kasta oo carqaladeynaya dhageysiga dacwadda iyo habsami u socodkeedaba sida adeegsiga taleefanada wada sheekaysiga iyo la falgalka dacwada si waafaqsan qodobka 97-98 xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed. dhinacyada waxaa la socodsiinayaa inay u hoggaansamaan awaamirta maxkamadda si waafaqsan qodobka 99 xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed. maxkamaddu waxay ka kooban tahay anigoo ah garsoore Cabdirasaaq Cali Yuusuf ahna gudoomiyaha maxkamadda kaaliyana uu ka yahay Axmed Cabdiraxmaan Xaashi. maxkamadda waxaa ku metelaya xafiiska xeeryaalaha guud xeeryaaliye Cabdixakiin Maxamed Xirsi. maxkamaddu way furan tahay. waxaan u akhri doonaa eedeysanayaasha waxaan u akhri doonaa eedda loo heesto. eedeysanayaasha waxaan ugu wici doonaa mid si eedeysana kasta loo weydiiyo inuu galay dembiga loo heesto. xeer lambar 29 soona baxay 30 bisha 11 2014 tirsiga koowaad ayaa waxa uu leeyahay cidna ma isticmaali karto markab inuu ka kalluumaysto biyaha Soomaaliya isagoo haysan shahaadada ruqsad diiwaan gelinta markabka ansaxa. sidaa daraadeed eedeysanayaashana waxa ay sameeyeen arrintaas lid ku ah sharciga ahayd waxayna iska maamusheen biyihii badda Soomaaliyeed gaar ahaan Galmudug ayagoo iska adeegtay iska raranay doontooda si baalmarsan sharciga. waxa u saarnayd eedeysanayaasha markii la soo qabanayo doonta 6 tan oo malaaya oo ay ku urursadeen si sharci darro ah. eedeysanayaasha waxaan ku soo aadeynay qodobka 29aad tirsigiisa koobaad labaad iyo toddobaad oo ay mas'uul ka yihiin eedeysanayaashu tirsiyadaas faldambiyada ku xusan. meesha eedeysanaha koobaad iyo labaad ay mas'uuliyad gooni ka saaran tahay faldambiyeedkan sababtoo ah eedeysanaha koobaad waa milkiilihii iska lahaa doonta una soo bareeray inuu intan wadada intuu soo wato si sharci darro ah ku urursado hantida Soomaaliyeed iskagana jallaabto. meesha eedeysanaha labaadna uu yahay fududeeyay ajaanibtan inay ka adeegtaan geeyiga Soomaaliyeed si baalmarsan sharciga kalluumaysiga badda Soomaaliyeed ayagoon haysanin wax sharciya. maxkamadda sharafta leh waxaan ka codsanaynaa in eedeysanaha koobaad iyo eedeysanaha labaad lagu cusleeyo ciqaabta ku xusan qodobadan sababtoo ah waxa ay u bareereen faldambiyeedkan si waafaqsan qodobka 39aad xarafkiisa haj amaha xarka ciqaabta Soomaaliyeed. dabcan hantida ay wateen ha ahaato milkiyad ha ahaato doonta ha ahaato alaabta saarnayd ha ahaato afarta doomada yaryar ha ahaato qalabkoodii oo dhan waxa xaq u yeelanaysa dawladda xaq u yeelanaysa. maxkamadda waxaan ka codsanaynaa in hantidaas waa hanti dawladeed in lagu wareejiyo dawladda oo ay dawladdu la wareegto. maxkamadda sharafta leh waxaan ka cadeynaynaa horteeda in aysan dadkan ku andacoon karin
ma aanan ogeyn sidaan horeyba u soo sheegnay ku xusan qodobka 5aad ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed faldambiyeedkana ay mas'uul ka yihiin maxkamadduna ay ku xukunto qodobada aan ku soo aadan ciqaabaha ku xusan si waafaqsan sharciga. waxay u fariisatay maanta oo taariikhdu tahay 29 bishii 3aad 2021 dhageysiga dacwadda ciqaabta ah oo lambarkeedu yahay eber 41 oo lid ku ah eedeysanayaasha kala ah علي عمر علي إنا حقن ناصر محمد صدين سقال جرأة ودا شي يمن دقن حديدة موسى يوسف موسى إنا حاوى أحمد علي أفرتين لما جرأة كودا شي دقمدا بارقال دقنا إسلا دقمدا بارقال صومالنا محمد قاسم أحمد إنا نمعاء سعيد ساهم 26 جرأة ودا شي يمن دقن حديدة أحمد حسن علي إنا عاش علي سليبان صدن جرأة ودا شي يمن دقن حديدة عادل عمر علي إنا حقان ناصر محمد صدن جرأة ودا شي يمن دقن حديدة يحيى عمر قديب إنا سلامة علي محمد 24 جرأة ودا شي يمن دقن حديدة علي برع محمد إنا عيدة عود بشار 20 جرأة ودا شي يمن دقن حديدة عدو يحيى علي إنا النمعة محمد عبد الله 25 جرأة ودا شي يمن دقن حديدة عدو أحمد علي إنا فاطمة محمد ظاهر 16 جرأة ودا شي يمن دقن حديدة مهيب محمود مهدي إنا رقية أحمد صالح 20 جرأة ودا شي يمن دقن حديدة سالم ثابت سيد إنا سلمى جمعان محمد 20 جرأة ودا شي يمن دقن حديدة زياد إبراهيم راهيم إنا حاوى عبد الله شمال كنتن جرأة ودا شي يمن دقن حديدة عادل أحمد عمر إنا بدرية علي إبراهيم 8 جرأة ودا شي يمن دقن حديدة أنور عيد عبد الله إنا عالية أحمد علي 8 جرأة ودا شي يمن دقن حديدة أكرم عيد عبد الله إنا عالية أحمد علي 20 جرأة ودا شي يمن دقن حديدة عيد عبد الله السعيد إنا عبيدة ثابت علي 40 جرأة ودا شي يمن دقن حديدة عبد الله يحيى علي إنا النمعة علي محمد 27 جرأة ودا شي يمن دقن حديدة فيصل علي أحمد إنا آمنة جمعان محمد 6 جرأة ودا شي يمن دقن حديدة سعيد سليمان صالح إنا سعود عبد الله سالم 26 جرأة ودا شي يمن دقن حديدة صالح محمد يحيى إنا فاطمة سعيد أحمد 8 جرأة ودا شي يمن دقن حديدة علي سلمان عبده إنا عبيدة أحمد عجاوي 22 جرأة ودا شي يمن دقن حديدة أحمد علي عبده إنا عاشم محمد هبة 16 جرأة ودا شي يمن دقن حديدة محمد علي عبده إنا عاشم محمد هبة 20 جرأة ودا شي يمن دقن حديدة قاسم ضالب صالح إنا سعيد أحمد سالم 29 جرأة ودا شي يمن دقن حديدة عبده سالم حسن إنا سعيد إبراهيم حسن 16 جرأة ودا شي يمن دقن حديدة عرفات عبد الله قاسم إنا سلامة محمد علي 29 جرأة ودا شي يمن دقن حديدة عبده حسن أحمد إنا وهبان محمد هبة 29 جرأة ودا شي يمن دقن حديدة سليبان حباني الناصر إنا سعدية أحمد سالم 16 جرأة ودا شي يمن دقن حديدة ثابت حباني الناصر إنا سعدية أحمد سالم 40 جرأة ودا شي يمن دقن حديدة محمد ساعد محمد إنا حفصم محمد حسن 8 جرأة ودا شي يمن دقن حديدة محمد سعد سعيد إنا سعيد علي عجيمان ودا شي يمن دقن حديدة maxkamaddu waxa ay u akhrisay eedii loo heestay eedeysanayaasha ayagoo dhammaantood
ku jawaabay in ay galeen eedda loo heesto oo ah kalluumaysi sharci darro ah oo ay ka sameeyeen badda Soomaaliya gaar ahaan xeebaha Galmudug aagagaan ee degmada Xardheere taariikhdu markay ahayd 24 bisha 3 2021 saacaduna ahayd waxaa la soo qabtay taariikhdu markay ahayd lagana soo qabtay aagaas taariikhdu markay ahayd 24 bisha 3 2021 saacaduna ahayd abaaro 1 saac iyo bar subaxnimo ayagoo wata doonta magaceedu yahay Albatar nambarkeeduna yahay 3.75 lagana leeyahay dalka Yemen milkile iyo wadana uu ka yahay eedeysanaha koobaad Cali Umar Cali doontaas oo saarnaayeen 39 qof oo 8 kamidana ay yihiin caruur aan qaangaar ahayn halka 31 kale ay yihiin eedeysanayaasha maxkamadda la hor keenay 31daas oo 29 kamidii ay yihiin shaqaalaha doonta ka shaqeynayay halka labada kale ay yihiin eedeysanaha koobaad doonta milkilaha doonta ahna wadaha doonta eedeysanaha labaad oo ah turjumaanka doonta ahna muwaadin Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Muuse Yuusuf Muuse doontaas oo lagu qabtay kalluun cadadkiisu yahay 6 tan oo ay si sharci darro ah badda Soomaaliya uga jilaabatay waxaa dhammaantood oo ku soo eedeeyay xafiiska xeraalyaha guud ee Galmudug qodobka 12aad farqadiisa 3aad iyo 5aad qodobka 29aad farqadiisa 1aad 2 qodobka 30aad farqadiisa 6aad xarafkiisa B C H iyo qodobka 31aad farqadiisa 1aad iyo 2aad xeer lambar 29 ee soo baxay 30 bisha 11aad 2014 inta kadib xeraalyaha guud ayaa xeer ilaaliyaha ayaa soo gabangabeeyay doodiisa asagoo maxkamadda ka codsaday in lagu ciqaabo qodobada oo ku soo eedeeyay waxaana uu codsaday in mid kasta oo kamid ah eedeysanayaasha sare ku xusan lagu ganaaxo lacag dhan $1,000 sida ku cad qodobka 30aad ee xeerka kalluumaysiga Soomaaliyeed wuxuu kala codsaday in lala wareego doonta iyo waxa dul saaran sida ku cad qodobka 31aad xeerka kalluumaysiga ee Soomaaliya ugu dambeyn eedeysanayaasha kor ku xusan ayaa maxkamadda ka codsaday in loo naxariisto maadaama si sharci darro ah ay uga kalluumaysanayeen biyaha Soomaaliya maxkamadda ayaa eedeysanayaasha u qabatay turjumaan lagu magacaabo Maxamed Maxamuud Xasan maadaama aysan garanayn afka Soomaaliga asbaabta xukunka maxkamaddu markay aragtay eedda uu soo gudbiyay xafiiska xeraalyaha guud ee Galmudug lidna ku ah eedeysanayaasha sare ku xusan maxkamaddu markay aragtay qiraalka eedeysanayaasha si waafaqsan qodobka 68aad xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed maxkamaddu markay aragtay qodobka 12aad farqadiisa 3aad iyo 5aad qodobka 29aad farqadiisa 1aad iyo 2 iyo 7aad qodobka 30aad farqadiisa 6aad xarfihiisa B C H iyo qodobka 31aad farqadiisa 1aad iyo 2aad ee xeer lambar 29 ee soo baxay 30 bisha 11aad 2014 maxkamaddu waxa ay u aqoonsatay eedeysanayaasha kor ku xusan in ay yihiin dambiilayaal galay dambiga lagu soo eedeeyay maxkamadda horteedana ay uga cadaatay xukunka maxkamaddu markay aragtay qodobka 12aad farqadiisa 3aad iyo 5aad qodobka 29aad farqadiisa 1aad 2 7aad qodobka 30aad farqadiisa 6aad xarfihiisa B C H iyo qodobka 31aad farqadiisa 1aad iyo 2aad ee xeer lambar 29 ee soo baxay 30 bisha 11aad 2014 maxkamaddu markay aragtay qodobka 182 183 97 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed maxkamaddu markay aragtay qodobka 120
121 123 125 xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed waxa ay ku xukuntay eedeysanayaasha sare ku xusan midkiiba $700 oo ganaax ah waxa ay milkiilaha doonta ahna wadaha doonta oo ah eedeysanaha koobaad magaciisuna yahay Cali Cumar Cali kala wareegtay doonta iyo wixii dusheeda saaran waxayna ku wareejinaysaa wasaaradda kalluumaysiga ee dowlad goboleedka Galmudug xukunkan waxa uu dhacay maanta oo taariikhdu tahay 29 bisha 3 2021 xukunkan waxa ka furan racfaan muddada uu sharcigu baneeyay wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaah guud ahaan daawadayaal barnaamijka saaka iyo VOS waa naga intaa nabadgelyo